waxaan ku faraxsanahay inaad adiguna mudane ra'iisul wasaare taariikhda ku gasho taariikhda Soomaaliya ra'iisul wasaare akademiyada yimaada oo arrinteeda hoos u eega yiraahdo waxbaan ka qabanay inaad adigu ugu horeyso sidaas daraadeed ay xukuumaddeedu soo saartay wareegto markii ugu horeysay oo xilka la wareegay afka lagu shaqeeyo oo warqadaha la isugu qoro oo dawladdan aasaaska ku ah inay u shaqeyso waa afka Soomaaliya intaana madaxda ummadda Soomaaliyeed la hadlaysana waxaan kula hadli karnaa af Soomaaliya haddii kugu dhib yahay waa inaad barataa sababtoo ah waxa kaliya oo annaga iyo shacabkeena isu keena xariga naga dhaxeeya waa luqadda Soomaaliga waa afka Soomaaliga sharafta iyo karaamada ay leedahay in af Soomaali luqadeena annagu aan ku wada hadli karno aan isu qori karno oo qof ajnabi ah aan akhrin karin aan isku garan karno adduunyada meel walba qof maraayo waryaama Soomaali baa tahay aad farxaysa ومالنتي ugu horeysay qof kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya aan la kulmo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay niyadeedu wuxuu galiyay waxyaabo badan maadaama aan qof dhalinyaro jira 18 sano insha Allah ta'ala waxaan ka rajeynayaa waxyaabo badan iyo horumar badan insha Allah ta'ala waan ku faraxsanahay la kulanka ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaan jeclahay waa ra'iisul wasaare ku dayasho mudan maxaa yeelay ra'iisul wasaarayaashii hore sidaan maysan ahayn aad iyo aad ay uga duwan yahay waa farxad gaar ah muhiimad gaar ah ay tahay waan jeclahay xilkiisa kale inaan gaaro waa jeclahay inaan waa ra'iisul wasaare ku dayasho mudan aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa uuna mahadsan booqashadii uu ku yimid ra'iisul wasaaraha akademiyada cilmiga iyo fanka waan ku faraxsanahay inaan madaxweynaha inaan ra'iisul wasaaraha la kulmo anigoo ah ardayda wax ka barta jaamacadaha ku yaala Muqdisho Soomaaliya waana arrin farxad ah inuu ra'iisul wasaare ardaydiisa dhalinyaradiisa iyo ardaydii Soomaaliya wax ka baranaysa uu la kulmo uu dhiirigeliyo aad aan ugu hambalyeynaya waan ku faraxsanahay صعب بدن هالوقتو صعب بدن هالوقتو وهذين تاريخية وهذين تاريخ بنتها كجلاء صوته وحن أوجه ذلك مدشوا حمضيين إنها كبد حمضيين أنا رأس كوسام بحدينا هاوي والبهلان فانتسي أما مالك وعويان أما نبض قدر ما وجودي وضدنا بديت وأنت كعرفتها وقرون بقعدي عيالها بربارتي لصوح ولي برتان لوغو باقي بوشي غير غيدوما ولابو سركعا صعب بدن هالوقتو صعب بدن هالوقتو wasaaraddu inay xafiiska cabashooyinka dadweynaha furtay waa qayb kamid ah in cadaaladda wax laga qabto in qof walba oo dareemaya cadaalad xumo uu helo xafiis aan lacag ku kacayn oo inta la yimaado ay su'aalaha ay qabaan ama dhibka loo geystay ay u soo caban karaan cabashadaasuna ay u imaanayso dad sharciga wax ka yaqaana ugu dambeyntina wasiirka cadaaladda ay u imaanayso wasiirkuna uu keeni karo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha وطلابة وين أو أرمها عدالة لقى قاضي وطلابوين كمدة بلنقات كمدة عينو سمي هوله كلنا عنكم مشغول صرنا هدي لا إله حفيزك الله طالنت الشرعية
sidaasuna isaguna waxay tahay qof walba oo Soomaaliyeed oo u baahan in sharci ama qaanuun lagala taliyo ha ahaato qof ka xiran ama dhib kale haysta ama guri laga haysto ama maxkamad wax xukuntay oo u baahan in lagala taliyo qaanuunkaas iyadoo aan wax dhaqaale la weydiinayn inay wasaaradda cadaaladda iyaduna ku kaalmayso wasaaradana uga mahad celinaya habeenkii noogu horeysay ee 27 sano ay habeen diyaarad chat ah oo weyn oo passenger wada ay soo degto falilaahi alxamdu si nabad ayay diyaaradu ku soo degatay pilotka ayaan wax yar oo waraysi la yeeshay markuu soo degtay si aan u hubino qalabkii aan rakibnay oo runwayga inay sidii loogu talagalay u shaqeynayaan pilotku war farxad loo siiyay wuxuu ii sheegay markii koowaad oo uu dul maray markii hore uu dul maray oo dhinaca badda ayuu ku degashada ku soo sameeyay markuu dusheena maray airportka dushiisa marayay 5,000 feet ayuu dhulka ka sareeyay wuxuu ii sheegay markaas inuu arkayay nalalka runwayga markuu soo jiiray uu soo deganayay wuxuu ii sheegay asagoo 7 kilomitir noo jira inuu arkayay nalalka loo yaqaan bubble lightska oo diyaaradu ku degtaan iyo runway lightska labada uu arkayay 7 kilomitir asagoo soo jira distance dhulkana uu jiro 5,000 feet marka waa calaamad guud ah operationkii waa ku guuleysanay qalabkii aan rakibnay oo loogu talagalay diyaaradu inay habeenkii isticmaalaan sidii loogu talagalay oo standardka ay u shaqeynayaan marka diyaaradaha kale iyo airlines kale dhammaantood waxay noo tahay farxad in pilotkii noogu horeeyay caawa noo soo degtay diyaaradaha kalena ay ku dayo doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Now you are more open for the world, and to be honest, I'm happy because I'm not expected so good operation in the night time. Edge lights very good, very bright. Of course, it will be better in the future to have at least VOR or maybe ILS, but at least now it's acceptable. It's acceptable for normal operation. sida aad dhammaantiin arkaysiin garoonka aadan cadda international airport waa really waa international caawa waad arkaysiin wuxuu furan yahay subaxii 6 ilaa iyo habeenkii 10ka inkastoo laga soo degi karo waqti alla waqtiga la rabo laakiin shaqaalaha waxay available yihiin waxay diyaar inoo yihiin oo inoo joogaan airportka ilaa iyo 10ka habeenimo diyaaradda commercialka ay hadda waad arkaysiin inta leeg ay soo degtay ayadoo 200 oo qof wado ay soo degtay haddana way ka duuli doontaa airportka marka insha Allah taala hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa diyaaradaha kalena inay ku dayan doonaan garoonkana uu inoo furan yahay. May I request protocol to escort His Excellency. I have great pleasure in welcoming His Excellency Hassan Ali Kire, Prime Minister of the Federal Republic of Somalia, and I now invite him to address the General Assembly. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President, Mr. Secretary General of the United Nations, honorable delegates, excellencies,
ladies and gentlemen. It is an honor to address the 72nd session of the United Nations General Assembly. I bring you warm greetings and good wishes from our President, His Excellency Mohammed Abdullahi Mohammed Farmajo, and the entire government and people of the Republic of Somalia. This year's session also coincides on a National Peace Day. Yesterday, we observed the International Day of Peace, a day that called for togetherness and solidarity with those who have been forced to flee their homes and those who leave home to seek a better life. Thank you, and may Allah bless you all. waxaan aad ugu faraxsanahay inuu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka soo hormuuqdo New York oo ka soo jeediyo khudbad aad iyo aad u muhiimsan oo ku saabsan nabadeynta iyo xasilinta wadanka Soomaaliya. waxyaalo badan buu ka hadlay oo na taabtay sida amniga, waxbarashada, dhalinyarada, horumarka dhalinyarada, horumarka wadanka. maartay shirki ka dhac New York muhiim oo noo aha ra'iisul wasaaraha maartay iyo xukuumadda in lala shaqeeyo wadankuna waa amni in wadankan hore u sii socdo oo maartay ay shaqo wanaagsan ka dhaxayso shacabka iyo dawladda iyo xukuumadda iyo baarlamaanka dhammaantood waan u duceynaynaa insha Allah taala aadaan ugu faraxsanahay inuu ka qayb galo arrin loo baahnaayo inay ahayd. caawa farxad inoo leh 27 sano kadib mas'uulkii ugu sareeyay xukuumadda ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre inuu habeenimo ka soo dego garoonka Aadan Cadde International Airport aad iyo aad ayaan runtii u faraxsanahay dad waxay ka tarjumaysaa arintaasi horumarka iyo tallaabada uu wadanku gaaray asaga uu hogaaminayo. waxaan caawa aad ugu faraxsanahay in shaqada xukuumaddu ay qabatay awgeed aan habeen ahaan aeroboortkeena magaalada Muqdisho aan ka soo degnay iyada lafteedu waa wax aad loogu farxo inaan halkan caawa idin la joogo aan shaqadii halkan ka sii bilaabi karno. Birlikte mücadele ederek Somali'yi sağlıklı, güvenli bir noktaya getireceğimize de bütün kalbimle inanıyorum. Soomaaliya waa wadan maanta maraya meel dadka Soomaaliyeed ay rajadooda soo laabatay. Waa wadan maanta uu ka muuqdo iftiin. Waa wadan maanta shacabkiisa iyo dawladdiisa isku soo dhawaadeen. Waa wadan maanta ku socda jaranjarooyinka horumarka qaybihiisa ugu horeeyay. laakiin talaabada ugu horeeya u baahan yahay si dalkan uu gaaro meesha uu rabo inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooniya ka imaan laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed leh tababarkii loogu talagalay u taagan inuu difaaco qarannimada ummadda Soomaaliyeed dugsigan tababarka oo noo furteena waxa uu kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna waan idinka mahad celinayna.